waa kuwa shanta kooxood ee ugu badan ee taariikhda horyaalada Yurub ee Champions League iska xaadirisay wareegga sidnamaadka. sidoo kale kooxaha iska xaadiriyay inteen leg ayay awoodeen inay ku guuleystaan koobka Champions League. ugu horeynta hadaynu ku bilowno kooxda Bayern ayaa kooxda ugu badan ee taariikhda koobka Champions League gaadha ama iska xaadirisay wareegga sidnamaadka, waxayna kooxda Bayern iska xaadirisay wareeggan 22 jeer. sidoo kale kooxda Bayern waxay awooday 22 jeer inay ku guuleysato ama ay ka gudubto wareegga, sidoo kale semifinalka ay sii dhaafto, gaadhana finaalka qaadana koobka 6 jeer oo kamid ah 22 jeer ay u gudubtay wareegga sidnamaadka taariikhda koobka Champions League. halka kooxda Real Madrid ay tahay kooxda labaad ee ugu badan ee gaadhay ama iska xaadirisay wareegga sidnamaadka koobka Champions League, waxayna awooday kooxda Real Madrid inay iska xaadiriso wareeggan 18 jeer. haddaba kooxda Real Madrid 18 jeer ay iska xaadirisay wareeggan, waxay kooxda awooday inay ku guuleysato koobka 14 jeer oo kamid ah, halka afartii kale lagu reebay ama sidoo kale haddii finaal gaadhayna laga qaaday.